dad hadduu didana ma soo noqdo xoolaha marka ay didaan la soo celiyay laakiinse dadku haddii ay didaan ma soo noqdaan ama ka iibso ama iibsan waxaan leeyahay ragga waar barnaamijkaad wadaani waa warqad la akhristay kulmiye waa warqad la akhristay warqad haddii la akhrisana ninna hoosta kuma haysto waxaan dhalinyarada u sheegayaa inanka Hargeysa ka yimiday ee ficiina ah ee markaad codkiina u diideen oo quus ka gaadhay inuu damiirkiina baayico oo $20 siista doonaya ee halka isagu ku soo tala galay ka waxaan leeyahay waa una casnigo rag ganacsata ah oo iyaga laftooda hawsha kala shaqeynaya reer Boorama waxaan leeyahay war codka gobolkiina ha yareynina dhalinyarada aad baayacaysaan $20 kaarka ku baayacaysaan waxaan leeyahay war dhalinyaradu maanta waxa kuma soo noqonayso waxay daba yaacayaan masiirkoogii oo bac lagu sido oo degta ay ku sitaan dadaan iyo heer wahaynay degta ku sitaan bay daba yaacayaan waana ayaan daro in halka xisbiga ku dambeeyo waxaan mar labaad u sheegayaa oo aan mar saddexaad u sheegayaa dhalinyarada gobolada Awdal iyo Salil Booxaleeh ragga damiirkiina baayacaya waa rag in la mida waa rag 7 sano wax idin qaban waayay waa rag ballanqaadkoogii furay waa rag wacad qabayaala waa rag abaalaawayaala markii dadku ka soo jeesteen inay $20 ku baayacaan waa haddii ay idinka helaan iyo nasiibkiin